ninka intii baxay tagay dal shisheeye ee 2 konteenar ka soo buuxiyay Tramadol iyo Bilibili asxaan uma falin bulshada Soomaaliyeed Tramadol iyo Bilibili si dhalinyarada Soomaaliyeed mustaqbalkoodii loo baabi'iyo waxaan oran karayaa waa musiibo waa barmadow oo ku taala ganacsatada Soomaaliyeed kuwoodii liita isku darka shiishada xashiishka blue tablet Bilibili Tramadol Diasbam codeine syrup iyo cocaine قالوا سالم أنت كوسا بريسلي سلوا شقيسنا يا ما أنت رسال حاسبين لكمرك سو مقيا الله إذا صار حركة ويا معنا هو مش شقيستاي شلا يقدر هذا شقيسنا ما أنت نسامع شقيسنا ما أنت سامع كده أي كتير هاي عايز كلينا أنا دلني يا دلنا عاوز كده سويت kala soo hadlaya dekada weyn ee Muqdisho maanta waxa lagu soo bandhigay waxyaabo muqaadaraad ah taas oo falka amni darada ah ee Muqdisho kaalin weyn ka qaadanayay sidoo kale maanka ka dooranaysa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ku qabtay gudaha dekada weyn ee Muqdisho 2 konteenar oo siday waxyaabaha muqaadaraadka oo ka mid ah 225 ama waxyaabo kale oo Bilibili ah iyo Kenyaal kale muqaadaraad ah oo qofku si ahaan u bedelaya jismi ahaan iyadoo inta badan ba magaalada caasimadda ee Muqdisho ciidamada booliska Soomaaliya ee la dagaalamayaan waxyaabaha muqaadaraadka afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed oo shir jiraa'id warbaahinta ugu qabtay gudaha dekada weyn ee Muqdisho ayaa ka warbixiyay muqaadaraadka ay maanta qabteen wax ay ka dhigan tahay iyo noocyada ay kala yihiin waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed mar kale u soo bandhigno waxyaaba bulshada dhaqankeeda suuban liddi ku ah hoggaanka ilaalinta canshuuraha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ka duulaya awaamirtii taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ee heedla dagaalanka waxyaabaha maandooriyaha ah ee ku dhaxbaahay bulshadeena ayaa shalay oo ahayd taariikhda 23 bisha Agoosto 2025 wuxuu gacanta ku dhigay waxyaabaha idin muuqda hortiina yaala oo ah daraagis ay bulshada Soomaaliyeed dhalinteedii ku waxyeelowday isticmaalkooda waxaan horta marka hore u mahad celinayaa ganacsatada Soomaaliyeed ee dhaqanka suuban leh ee wanaagsan ee canshuurta sida wanaagsan u dhiibta kuwa oo ka digtoonaaday wax walba oo bulshada liddi ku ah dhanka kale waxaan ambaaraynayaa ganacsatada Soomaaliyeed ee intay hanti qaaday